maanta Musabixi Cabdi madaxweyne hore oo eednay ayaa gobolka Togdheer ku sugan u yimaaday. Waxaan la yaabana codkan marka la doonayana lagu soo xisaabtamayo marka la helo looray farta dhexe ka qaniinaysa. Shalay bay ahayd markaan dooranna waynu eedna 7 sano hay waynu eedna ciidankeena wuu jabiyay madax dhaqameedkeena ma siyaasiyiinteena wuu ka caagiyay Soomaaliland dhahay ma iman kartaan oo ka fiiriyay maxaa la dhahaayay kii juuq dhaw inaga xidha kii cadaadis buu inaga saaray ganacsatadeena iyo kii wax islaala soo degba cadaadis buu saaray marka maanta waxaan oo dhan waynu garanaynaa haddaynu waalanahay cod waynu siinaynaa haddaynu miir qabnana waxaan oo dhan waynu garanaynaa maanta waxaan oo dhan nin dalkan iyo dadkan isku wadi kara kaasina waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan laba cod boqof waliba xaq u leeyahay waa codka gudoomiyenimada iyo qofka codka musharaxa waxa la siinayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro codka gudoomiyahana waxa la siinayaa Xirsi Cali Xaaji Xasan marka habar jeclay maanta labadaas ama reer baryo ayaa inoo daran aynu dooran oo haddaynu shay tolo farteena eednay dayeenan duweed maxay inta tala ka boodid inta dhalinyaro inta geed ka boodo ay tala ka booda siiba dhalinyarada waxaan leeyahay shalay haddaynu farteena eednay way mustaqbalkeena ku xiran yeenan maanta mustaqbalkeena ku ciyaarin dhibkayna haysta waynu ognahay tacal walba haday xaq waxbarasho tahay haday xaq leer tahay haday xaq biyo tahay haday xaq horumarineed tahay haday xaq sixir barar tahay de marka dhibaatayna haysata marka ilaahay inaga samata bixin lahaa wuu jiraa laakiin waxa ku xiranta isbedelkana waa inaynu isbedel sameeyno farteena ku ciil baxno hadaynu farteena ku ciishoonay inaynu ku ciil baxno maanta oo inaan dubi eedin waa idinka hubaa inaynan dubi eedayn midaan isdhahay waa laangaab kulay laandheero sida uma hadlo see rag laandheero u hadla laandheeraha maqash waa ka see rag u hadlay maaha ka qabyaaladii waxa ka hadla ama ka qolada fiican laandheero waa ka sida rag u hadla midaan sidii waa laangaab ayaan duuribay soo galay wuxuu ku dhahay na Musabixi sida loogu soo dhaweey gobolka Togdheer Markiis waxaan ugu jawaabay yar meel fog kama doonine martida meel walba lagu soo dhaweey waana lagu sooraa marka waa safarkiisa gootinta bal horta meeshu ku noolaan lahaa ma u sii haysan Musabixi ilaa uu iska tagay wad aragtaane bal meel uu ku noolaado ma u sii haysan bandha taasi waa mid waxaan la yaabana nimanka habar jeclo ee gurigeena adeerkood laga shirqoolay laga xidhay Faysal Cabdi Bootaan intuu madaxweynaha soo socday ka dhex niikiyay ee ka dhex boodbooday ee ugu sacabku yeeray ku raacsan waxaan leeyahay mari dagaal la hadago laba jeer idage si aan istagay isma lahayn nin habar jeclaa maanta gurigeena adeerkiyo talagu sameeyay shirqoolka loo geystay oo wali u xiran yahay ayuu ninkii xidhay dhibka geystay ka dhex niikinay ka dhex jaasay laakiin way dhacdo Soomaalidu marka hore fartaas isku dayda marka dama shanta isku dayda war waxaan leeyahay markii hore farta la idinku dayay imka shanta la idinku hayaay ilaahay idin soo hadeeyay kuwa sacabka tumayna waxaan leeyahay maanta waa maalinta wax garan lahaydeen garan lahaydeen maadirin inay wada xiran yihiin oo jeelal ku jiraan oo ku qurmeen maaha maalinta la neekin lahaydeen ninkii dambiga geystay waxaan leenahay Musabixi iyo inta la socotana doorashada uu noo qofartuma lagu kala baxayaa anagu mana neekinayno mana boodboodayno mana jaasayne mana faanayne farta lagu kala baxayaa doorashada hal qabto